marna isaga loo duceeyay intuu madaxweynuhu hadalkii qaatay waxaan lagaba filayn ayaa bishimihiisa ka soo boday wuxuu fartiina adeedi doonta marka waxaan doonayaa uun waxqabadkan doona waan u geli doonaa saddexda sanadood waan u geli doonaa waxqabadka 3 sano waxaa laga filayay arrimaha dibadda kow Somaliland waxay dunida ka iibisa waa 2 factor waa doorasho iyo ictiraaf dunida ka hesho doorashada waan u geli doonaa ictiraafka Somaliland dunidu aqoonsanayo halkii horta xukuumadda dhigtay garaafkee ayuu gaarsiisay ma hoos buu dhacay mise garaafkeedu sare u kacay kow waxaa ilaha adeega bulshada aasaasiga oo ee caafimaadka ee waxbarashada ee wadooyinka ee leyrka ee biyaha maxaa bulshada ay u qabatay xukuumadda saaxsano miisaaniyad bay maamulaysaa daraska miisaaniyadda xitaa shalay la sii daayay maxaa ka qabsoomay wax laale iyo wax ka qabsoomay ballanqaadyadeedii oon 3 shay ahayn oonu sheegnay mooyaane wax kale maxay tahay 3 shay isaga noo sheegay maxay 3 shay qarsanta infrastructure oo kale waxa laga filayay in wadooyin fara badan la sameeyo waxa laga filayay in dalka la geliyo ila dhaqaale oo wax soo saar dalka u noqdo waliba maaska iyo muruqmaalka rajo loo abuuro nololeed waxa laga filayay oo kale marka laga hadlayo waa kaabayaasha dhaqaalaha markaan ka hadlayno waxa laga filayay oo kale de barnaamijyo balbalaaran oo intan ka balaaran oo de buugan ku qalwa waa kan buugoodii buugoodu waa kanoo waa 2017 2022 waana 6 tiir 6 tiir buu dul istaagay cabdinaasir buune afyeenka xisbiga kulmiye ayaan siinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxamed cabdi ilig iyo bahda telefishanka MMTV iyo walaalkay barkhad oo matalaya ama ku hadlaya afka xisbiga mucaaradka ee wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii haddaan ku soo dhawaado waxa dee su-aashaad barkhad ku horreysiisay waxay ahayd maxaa u qabsoomay 3 sano ee aad ku dhaliilaysaan waxa weeye xisbigan talada haya ee kulmiye ee xukuumaddan maanta joogtaa ka dhalatay barkhad si toos ah uu gudagelin waxa way buuggan uu sito iyo waxa way iyo dhaliilahooga rasmiga ay hayaan wuxuu ku horeeyay doorashadii dalka ka dhacday 2017 oo uu sheegay in ay ahayd doorashadii abid ugu adkayd horta doorashadii abid ugu adkayd ma ahayd doorashooyin ka horeeyay madaxtooyo ayaa dalka ka dhici jiray doorashadii ugu horeysay ee dalkan madaxtinimo ka dhacday wuxuu tartanku ku dhaxmaray daahir riyaale iyo waxa way Axmed Siiraaye iyo Faysal Cali Waraabe tiradii ugu yarayd ee farcididood ba lagu kala qaaday isagoo Axmed Siiraaye cabqari siyaasi ah xisbi weyn hogaaminaya ayuu aqbalay oo la ballaadhni uu u yeeshay inuu aqbalo dadkiisii taageerayaashiisina uu u sheegay oo waxa way doorashada laga helay marka doorasho aynu galaynana dalkan waxa yaala uun nin guuleystay nin guul dareysta xisbi guuleystay xisbi guul dareysta ama xisbi guuleystay laba xisbi guul dareysta waxaynu dhiganay way marka haddii aanad u lahayn la ballaadhni iyo geesinimo aad dadkaaga ugu sheegto waxa weeye in doorashada laga helay de maxaad marka horeba kursiga madaxweynaha ka soo doonaysay sideed sadal u hogaamin lahaydeen wadani hadaatiin waxa weeye inaad shacbiga reer Somaliland isku wadaan haddaad aqbaliba weydeen doorashadii aad arkaysay waxa weeye 80 kun iyo dheeraadka ahayd lagu kala badiyay maxaad samayn lahaydeen haddii 80 codna sidii Axmed Siiraaye la inaga heli lahaa taatiri waxa weeyaan kala qaybsanaanta dalka de kala qaybsanaanta dalka doorasho dhacday doorasho markay dalka ka dhacdayna xukuumad baa timid labadii waxa way xisbi mucaarad sida qaanuunku dalku sheegaya automatically waxay noqonayaan xisbiye mucaarada inaad shaqadiina qabsataan baa haydo si dadku u midoobaan doorashooyin baa lagaga baxayay doorasho markiiba shaqadiinii u horeysay qabataan waxay noqotay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maalintii la dhaariyay 4 December 2017 wuxuu miisaaniyadii 2018 ku daray doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golayaasha deegaanka 4 bilood kadib xisbiga wadani waxay si rasmi ah u soo saareen guddi doorasho 2 sano waqtigoodu u harsan yahay inay raadaan kalsoonida kala noqon iyagoo hab qaanuuniyan aanu maraynin sharciyad ay dad nimankaasi ku eedeynayaan aanay jirin marka qaybsanaanta uu sheegayo shacbiga waxa dimuqraadiyadda loo sameeyay in lagaga baxo waa doorashooyin iyaga 3 sano hor taagna guddiday waxa way diideen 2 sano ay markii dambana khubara waxa way commission oo aqoonsadeen oo soo saareen marka waxa way xisbigani waa xisbi jaahwareer siyaasadeed uu soo waajahay
waxaana mana haystaan mistaaqiye siyaasiya oo ay dalkan ku hogaamiyaan ama ay ku caaridaan oo shacbiga reer Soomaaliland u sheegaan waxaad ku soo noqotaa afayeen mudane maxaad 3 sanadood qabatay 3 sano rajadii dadku idinka filayay ma gaadhin naga filayeen waxay ahayd dalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaado qaran madax bannaan inuu ahaado qaran Soomaaliland oo waxa weey kaabayaashiisa dhaqaale iyo kaabayaashiisa horumareedba ay xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 2017 aakhirkiisii soo baxday inay wax ka qabato arrimaha dibadda arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada biyaha waxa weey hirgelinta dimuqraadiyadda isku wadaysta dadka waxyaalaadkaas oo dhanba waxaanu aaminsanahay inay tahay xukuumaddii ugu wanaagsanayd ee muddada 3 sano imika ay ku dhowdahay haddaan tusaale fudud ku soo qaato waxa weey waxaan wax ka qabanno darkaysa imika wuxuu kaabayaasha ama arrimaha bulshada dadka sida tooska u taabtay waxaad og tahay maanta iyadoo xukuumaddaasi ay muddo kooban ay joogtay inaanu dhammaystirnay oo 25 kilomitir ama 20 kilomitir wax ka yar uu nooga harsan yahay wadadii 284 kilomitir ahayd waxa weeyaan ceeri gaabo inay maanta gabagaba ku dhowdahay oo maantada aynu joognana aynu arkayno in waxa weey wasiirkii iyo dad badan oo Soomaaliland birmigeyday ay joogaan marka nimankana ay dhaliilayaan xisbiga wadan iyo barxad ay maalintii dhaweytana ay soo qaatay waxa weey wadada ceeri gaabo budget bay leeyihiin dastuuriya oo waxa weey xisbiyada lagu kabo oo waxa weeyaan aanu siinaa weli intay isxilqaameen waxay xukuumaddu qabatay bit by bit intay u soo dul istaageen may odhanin wadadii ceeri gaabo ee halka ay ka qaadeen ama ay ballan qaadeen waa naga dul taagan halkaas taagantay hargeysa ka caytama qodobadaada qodobayso arrimaha bulshada maxaad ka qabateen caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinkaas aan ka qabanay waxbarashada Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee xukuumadda Muuse Biixi ay joogtay ee la tayeeyay kaalmihii ugu horeeyayna dugsiyadeena maanta aad arkayso iyo imtixaanaadkii u dambeeyay dhawaan la galay waa markii ugu horeysay ee iskuulada dawliga ay kaalmaha hore ka galaan waxbarashada Soomaaliland taariikhda Soomaaliland way maxay ku timiday tayeey iyo waxay ku timiday siyaasad cad oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay u dhigtay maxay ku tayeysay marka maxay ku tayeysay qaab noocii u tayeysay qaabka waxa u tayeysay kow waxa dalkan jiri jiray musuq badan baa jiri jiray musuq maasuqa xukuumaddan xididada u siibtay waana takaliha ma eg musuq markaan ku leehayna dhinac kasta u galaa tacliintu galaa biyuhu galaa caafimaadku galaa arrimaha dibadda galaa arrimaha guduhu galaa bulshadu galaa waxaasoo dhanba xukuumadda maanta joogtaay xididada u siibtay waana siyaasadda keli hatay maanta xisbiyada mucaaradka iyo dad badan oo suuqa ka hadlaya ku caaradeen xukuumadda maanta joogtay Muuse Biixi muxuu xididada ugu siiday musuq maasuq marka maxaa kaasa waxbarashadii tayeeyay waxbarashada waxay ku tayeeyay siyaasad cad oo xukuumaddu lahayd iyo waxyaalaad badan oo musuq uu ku yahay oo xididada loo siibay maxaad aaminsantahay waxbarashada iyo wadooyinka marka laga hadlo qodob baynu u geli doonaa waxyaabaha laga hadlay ee wax ka qabashada u baahnaa ama 7 qodob ee ugu waaweyn si dooduna ay u soo koobnaato marka qodobada uu Cabdinaasir ka hadlay wax laga qabtay tayada waxbarashada maxaad ka aaminsantahay qodobadiisa horta Cabdinaasir uu bahasay midba ku saxayay doorashada marka aynu ka hadlayno mas'uuliyadda doorashada qabashadeedu cidda saaran tahay waa madaxweynaha oo hadda diideen inay qabato حسن استماع بليس وان كو دغيسana kama dhaxgelin aan hadlo meesha inuu miir doorsoon jiro oo madaxtinimada mas'uuliyaddeeda laga leexinayo waxa daliil u ah dooda imika miska taala adigan ku weydiinayaa ama isaga baan weydiinayaa dalka inay doorasho ka dhacdo maaha shaqo cirro u taala manaha shaqo Faysal u taala manaha shaqo xisbiyada u taala dalka inay doorasho ka dhacdo mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay madaxweynaha talada dalka iyo xukuumaddiisa iyaga haya budgetka iyaga haya ciidanka iyaga haya nabadgelyada iyaga haya dalka taladiisa taas waa ta annagu doorasho doon baan ahay tabashada iyada commissionka saanu doonin meeshu ma aha supermarket qof iska leeyahay annaga key stakeholder qabiilna ma maamulo cid kalena ma maamusho waa arrimo qaran commissionkuna waa siirwale qofka garsoorka ah maxkamadaha sharciga aanu garanayn malaha walaalkay maxkamadaha qofka victimka ah ama dadka dacwadu u dhaxayso wax xaq u leeyihiin in garsooraha ku qanci waayeen judgmentkiisa inay duraan for the first procedure waa laga bedelaa oo garsooro kala loo doorta
neutrality iyo kalsoonidii aanu ku qabnay siqadii commissionka aanu ku qabnay xadmadii baad ka doodaysaa kadibna taayadiba u dhacdo wataa la kala daray imikana waa doorashada war dhegeyso war horta dhegeyso war been ma sheegnay dhegeyso laba doorasho kulmiya qabtay midna tii golaha deegaanka ahayd oo dhiig baa ku daatay midna waxa ahayd tii madaxtooyadoo dadkiisnacay weli alaanka qaar baan xabaalaha xitaa isugu tahay oo iyaguna ay ka helayeen inay dadka kala farfaraan taa doorashada bartaasaa ka leh waxbarashada iyo barnaamijkeeda horta waxaan aynu ka hadlaynaa ilaan hadal iyo huraag lama wada facts and figures baa miiska la yimaada si academiga u doodanaa xukuumad baanu qaybinaynaa 3 sanadood dalkan iyo dadkan ka mas'uula waxay qabatay waxa ay qabatay wax xukuumadda uu sheegan karayo ma ikaadim wuxuu sheegan karayo ninka la yiraahdo Cabdinaasir maaha waxa uu sheegan karasana maaha waa hal irmaan oo dalka iyo dadka ka dhaxaysa caanaheeduna cadaalad iyo sinaan iyo nabadgelyo iyo wadajir iyo xuquuq muwaadin horta u kaadi laga baxsho qodobka ku soo dhawaan anu facts and figures baan wataa buugani waa 2017 iyo 2020 maaha hadal iyo horaar waxa miiska waxbarashadu ka hadlaya karwaati waxbarashada barnaamijka waxbarashada ay ku galaan waa 6 tiir kan wuxuu soo galay arrimaha bulshada oo caafimaadka ka koob waxbarashada ka koob waan kuu sheegay wala dhegeyso kuu sheegay waxbarashada barta waxa ku qoran waxaanu dhisi doonaa secondary waa bartan ku qoranta waxaan ka been sheegay ma bal hal secondary dalka musabbiixi xukuumaddiisu ay ka hirgeliyeen ummadda maqlaysaa noo sheeg waa qodob horta dhegeyso war marka ka baxa gal siyaasad ka baxo dhegeyso war siyaasadna ma jeexi karaysaa war waxa waliyo waxa jeexday ma jirtay doodayda dhigis dawaa tare doodayda dhigis daawata dhigaysan ku dhamay daawata horta buugan maxamed oo kaadi bilisi kaadi buugan cilmiga waa ka cararay wuxuu iska leeyahay waxana ka leeyahay damarwaad baa waxana ka leeyahay war hadii qadoonina dawkaadi maxaa la diiqadoonaysa tamis waxa la maadi mana beenta bulshada u sheegtay ma sheegaya war beentii bulshada u sheegtay war beentii bulshada aanu sheegaynaa dhegeyso adan qalin war beenta bulshada dhegeyso adigoo mahadsan horta qodobadaas maxay yihiin wala weynayso dawladda inay wax ka qaban weydi kaabayaasha dhaqaaliga arrimaha bulshada okay hadaba waxaad dhegeysan dabuubi waa beenta bulshada u sheegtaan war beenta bulshada u sheegtaan ma sheeganaa dhegeyso dama ha dhegeyso war dhegeyso adigoo mahadsan hal diiqadoonaysa hadii qadoon waa kale dhegeyso soo ku sheegay waxay leedahay maxay qodobadaas ugu yihiin computer labs si tayo marka ay waxaan ka hadlaynaa waa tayo marka tiisu uu leeyahay waxbaan tayeeyay computer labs baan iskuulada dhiganaa gaar ahaan qaybta sayniska secondaryada hal iskuulo 6 gobol ee dalka computer lab xukuumaddiisu ay dhigta hasha waa facts and figures waxaan ka soo bal horta dhegeyso waxay leedahay waxaanu samaynaynaa dugsi kaste oo gobol kasta ku yaala gobol kasta waxaanu ka dhisaynaa 7 library hal library oo qalinka loo dhisay si aqoonta dhalinyarada ay u kobacdo horta waa dhagax dhig looga baahnee sheeg 3 sano joogtay annagaa noo riwaayad ka shaqaynaysaa ha sheego wakaas hal library ha sheego xukuumaddu ay dhistay library wax waxaan ku gabagabeynayaa waxaa deeqa waxbarasho sanduuqa deeqaha waxbarashada Soomaaliland oo ilaa heer PhD ayaanu sameeynaa sanduuqa xaqiiqo sameeyay bal ummadda u sheeg taas waa waxbarashada markuu ka hadlayo okay caafimaadka ila waxaanu ka hadlaynaa basic needs caafimaadka 3 sano u dhamaaday oo sanka la galay
iska daa somaliland inay mch ka dhiseen iska daa inay cusbitaalla ka dhiseen dhaqaalaha ugu badan ee muwaadiniinta somaliland wuxuu ku baxaa dhakhaatiirta turkiga iyo hindiya wasiiradooda xilka ka haya iyo iyagoo xukuumadda iyo xisbigooda aan cusbitalka weyne hargeysa oo kii 1953 ingiriisku dhisaya ayaa tayadiisa ayna isku aamini karin qof mas-uulaan la dhigi karin yurub taawdo listan 300 oo mitir buu u jiraa madaxtooyada dhan ee madaxweynaha xafiiskiisa ku yaala waa ta keentay iyadoo dalku xaalad cajiiba uu galay oo dunida ay kala xidhmato coronavirus uu ina galay intay awoodi kari waayeen oskajiiniye ambalaasyo inay u dawarsi tageen shirkaduhuna intay oskajiinadii iyo ambalaasyadii keeneen loo dhiibay 9 milyan oo dollar meesha geeyeen iyo xisaab xidh ay sameeyeen ma jirto marka kaasina waa kii caafimaad waa caafimaad waa kan ku qoran caafimaad almeediin dawaadeer waa kan dawaadii kan qoray waa kan caafimaad waxaad tirahdeen waxaanu ka samaynaynaa baad tirahdeen ceeri gaabo cusbital baanu ka dhisanaa ummadda u sheegay cusbitalka ceeri gaabo ka dhisan 3 sano xanaanaydan ka dhisin waxaad tirahdeen boorman cusbital weyn oo isku filnaansha ka dhisana maxaad ka dhisteen waxaad ku jirta meesha la yiraahdo burco maxaad ka dhisteen waa kuwii siyaad bariye ingiriisku ka tageen bale inaad rinjiyeysaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo intaa si guud adiga uga hadlaya kaalinta maanta taagantiin iyo dhaqaalaha geliseen iyo adeegii bulshada waxa iska bedelay si aynu bulshadii ina daawanaysayna ay meel u timaado ay u fahmaan dooda la isku hayo maxay tahay fahankaaga guud raagi maayo waan uga jawaabay waxbarashada heerka aanu maanta gaarsiinaan ku barqad wuxuu raadinayaa qol ma qasinta la qaato xadhiga laga jaro xoolo laguma xireynayo dadkii iyo siyaasadii cadayd ee waxbarashada haddana dalka u jeexin dee dhismo fooqoo la dhisay macna ma sameeyo laakiin waxaa muhiima inaad siyaasad cad oo waxbarashadii Somaliland oo maanta anagu dalkan waxa weeye 5 sano iyo 10 sano oo maanta madaxweyne qaanuunka Somaliland Muuse siinayo demaa laakiin waxa nalooga baay 100 sano soo socda wixii nalooga ayla siyaasad cad baanu taa ka sameeyay wala markii u horeysaan ku ee Somaliland ay dhacdo iskuulada dawladdu inay kaalmaha hore waxbarashada ka galaan intaasana tayo kugu filan oo qofku qalinkiisa waxa weeyaan uu ku meel maro arinta caafimaadka Somaliland oo dhan maanta markaad eegto heer iyo heer degmo ilaa tuulo ilaa gobol meel aan MCH ka dhisnayn meel una isbitaal ka dhisnayn oo saddexdaasna waxaanu gaarsiinay roorku dadkii uu ku dhacay iyo dumaradii waxa weeyaan ambalaasyada waayay in maanta meel kasta xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba looga soo mahadnaqayo oo og tahay maalin walba inuu wasiirka caafimaadku fadhiisan laayay uu waxa weeyaan 10 tuulo intuu isku maro iyo intaasoo MCH maalin walba xadhiga ka jaraya de haddayna iyagu waxa weeye waxyaalaadkii loogu talagalay budgetka iyo siyaasadda qarankan in lagu hormariyo waxaanu xisbi ahaan miisaaniyadda dalka lacag baa loogu daray haddayna iyagu intay hargeysa ka tagaan war hadday hargeysa ka tagaan de ortag ceerigaabo ortag oo boore madan iyo ceerigaabada soo qabatay 3 isbitaal baanu ka dhisnay ceerigaabo de ortag oo wasaaradda caafimaadka u tag oo ceerigaabo tag oo soo arag oo indhaaga ku soo arag buugaygu ma jacayl ku sidataa iyo hargeysaad ka hadashay gobolada tago budget baad leedahay miisaaniyadda xisbiga lagu siiyay intaad baxdo baabuur qaado tago shir jaraa'id ku soo qabo halkay wax ka qabteen laakiin buugaygan jacayl haddaad u sidato de barqadow ruuxdaada hadday joogto waxa weeye kulmiye xisbigaaguna wadani joogo oo kulmiyaalka ku sidata de iska kala xisbiga jacayl baad u sidataa horta buugan horta saalba ku jira horta wali ma tijaabad bixinoo dad toddoba cishaabad xisbiga xilkiisa haysa xog badanna kama haysid oo waaba taas daliileed iska kalifan tahay walaalo horta ma dhageyso may qodobada ku soo anu intaan dalka xog ka hayaa kama haysid horta dhageyso buugan kulmiya tahay cidda qorta miyaad garanaysaa aan ku soo dhawaad cidda qorta buugan aan ku soo dhawaad inaan xog haynin baa cadeynaysaa buugan cidda qorta sheekh qarab baa qoray lama qorin ayaa qormaada qoray xisbigaaga qoray qofka qoray qofka maxaa ka rabaa qofka raadisay waa qof baa ku muuqdo cilqaba qof baad raadisay